dagaalkii ugu cuslaa oo dhex maraya xilligan ay idinla hadlayo horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan nabadiidka al-shabaab dhexdooda. Dagaalkan waxa uu ka soconayaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Warka inuu ka helayno degmada Maxaas ayaa sheegaya in isla waqtigan dagaal culus uu ka soconayo gudaha degmada. Daawadayaal, janalkan hadduu kugu cusub yahay fadlan subscribe inoo saar saad ula socoto guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaraya iyo akhbaaraadka kala duwan ee wararka dalka iyo dibadda gudihiisaba. dagaalkii ugu cuslaa oo u dhexeeya horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan nabadiidka al-shabaab dhexdooda ayaa waqtigan waxa uu ka soconayaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. degmada Maxaas dhowr bilood ka hor waxaa gacanta ku dhigay kooxda argagixisada ah ee al-shabaab. wararka inuu ka helina ayaa waxay sheegayaan in dagaalka waqtiganba uu ka soconayo gudaha degmada Maxaas, wuxuuna dagaalka ka socdaa dhowr jiho. tuulooyin ayuu gaaray dagaalka. tuulada uu gaarayna waxaa ka mid ah tuulo lagu magacaabo oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, tuuladaas oo lagu magacaabo Dhisaqtiir. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaalku uu sababay ama uu ku bilowday kadib markii kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab ama kooxda al-shabaab ay isku qabsadeen xoolo ay ka soo dhaceen dadka degan eriyada degmada Maxaas, waxaana laba horjoogo oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab oo lagu kala magacaabo Xasan iyo Qaasim ay isku farasaareen gudaha degmada, iyagoona isku dagaalay lacagaha ay ka soo qaadaan dadka shacabka. sidoo kale kooxda ayaa waxaa la sheegay inay laba garab ay u kala jabeen. labadaas garab waxa ay kala raaceen labada horjooge ee haatan ku diriraya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. gurmadyo kala duwan ayaa labada dhinac waxa ay ka soo gaarayaan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan, iyadoona labada dhinacba ay waqti xaadirkan dagaalkii ugu cuslaa u dhex marayo. horjoogayaashan ayaa waxaa la isku dayey in arrintooda la xaliyo, balse waxaa jira khilaafaad xooggan oo ka dhex dhashay labada dhinac, iyadoona ilaa hadda xal laga gaari la'yahay. tirada dhimashada labada dhinac kala gaari ayaa waxay sheegayaan inay gaarayso ilaa 25 horjooge ama 25 dagaalamayaal oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab iyo laba horjooge. dagaalkan kala socda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhex marayna kooxaha argagixisada dhexdooda ama al-shabaab dhexdooda ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaalku uu ka bilowday kadib markii kooxda al-shabaab ay 21 neef oo geel ah ay ka soo dhaceen dhanka baadiyaha Galgaduud, ay rabeen inay ku qaybsadaan gudaha degmada Maxaas, balse horjoogaha xukuumadda degmada Maxaas ayaa ka biyo diiday una sheegay inaysan macquul lahayn in xoolaha la keeno degmada Maxaas la qaybsado. arrintaas ayaa keentay muranka, kadibna waxaa dhashay dagaal culus oo u dhexeeya horjoogayaasha dhexdooda. sidoo kale labada dhinac waxaa soo kala gaaraya gurmadyo waaweyn, iyadoona dagaalku oo bilowday maanta labadii duhurnimo ilaa haatan ay idala hadlayna oo ka soconaya gudaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa ay qayb ka tahay degmooyinka ay ka arimiyaan kooxaha al-shabaab, waxayna sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan in dhowr baawur iska gubeen labada horjoogo dhexdooda ku dagaalamaya ama horjoogayaasha dhexdooda ku dagaalamaya ee ka tirsan kooxda al-shabaab. gurmadyo kala duwan oo labada dhinaca ayaa soo gaaraya, iyadoona wararku ay sheegayaan inay iska waxyeeleeyeen ama halkaasi lagu soo waramayo inay jiraan dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan. waxaa jira waan lagu dhexdhexaadinayo labada horjooge, balse waa ay ka biyadiidsan yihiin inay heshiiyaan, iyadoona uu dagaalku aad u sii kullaanayo. dagaalka haatan ka soconaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waa dagaalkii ugu cuslaa ee dhex mara kooxda al-shabaab dhexdooda, iyadoona dagaalka waqti xaadirkan uu ka soconayo ama uu ku faafay tuulooyin hoostaga gobolka Galgaduud. sida la qiyaasay ama sida xogta aan ku hayno 5 baabuur ay leeyihiin horjoogayaasha dhexdooda ayay iska gubeen, dagaalkan iskaga gubeen, iyadoona dhaawacu tirabeel uu yahay. waxaa sidoo kale horjoogaha xukuma degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ee lagu magacaabo Qaasim uu gacanta ku haya isbitaalka ugu weyn degmada Maxaas, isagoona diiday horjoogaha kale ee ka soo horjeeda dhaawacyada wateen in la geeyo isbitaalka. muranka ugu weyn ayaa ah in isbitaalka uu soo xirtay horjoogaha, kadibna uu diiday in dhaawacyada dhexdooda meesha lagu dabiibo, iyadoo taasi ay sababtay in dhaawacyada qaar loo qaado degmada Wabxo ee gobolka Galgaduud. dagaalka oo haatan si xad dhaaf uga soconaya lagana yaabo in ilaa aroortii uu gaaro ayaa waxay sheegayaan in gurmadyo kala duwan labada dhinac ay soo gaarayaan, iyadoona horjoogayaashuna ay si weyn hanjabaad isugu dhaafsadeen dhanka qaadka taleefanka. waxay sidoo kale horjoogayaashu ay sheegayaan in dhowr horjoogo oo labada dhinac la kala safan iyaguna dagaalku ay soo galeen. waa markii labaad oo dagaal noocan ah uu dhex marayo koox ka tirsan nabadiidka al-shabaab dhexdooda, iyadoona wararku ay sheegayaan in gurmad aad u tiro badan labada dhinac ay soo gaarayaan. sidoo kale wararka aynu ka helayno degmada Wabxo ayaa waxay sheegayaan gurmadkii ugu tirada badnaa ee kooxda al-shabaab inuu halkaasi ka soo socdo, iyadoona
horjoogayaasha dhexdooda oo dagaalka haatan ku dhex maraya degmada Maxaas. Dagaalka ayaa waxa uu ku sii fiday tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. tuulooyin hoostaga degmada Maxaas iyo khaasatan tuulooyin hoostaga degmada Wabxu ayaa waxay sheegayaan inay maqlayaan dhawaqa rasaas culus oo isdhaafsanayaan labada horjooge ciidamada ay kala wataan iyadoona ay jiraan dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale horjoogayaasha ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in xal waara la gaari waayo arrintooda. daawadayaal markanne warar kale oo inaga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada Ceelbuur ayaa waxay ayaguna sheegayaan in gurmadkii ugu badnaa uu ka soo baxay halkaasi iyagoona doonaya inay degmada Maxaas u gaaraan si halkaasi xal waara looga gaaro. horjoogayaal ayaa degmada Ceelbuur ka soo baxay si ay xal degdeg uga gaaraan labada horjooge ee ku diriraya degmada Maxaasna dhexdooda ay u galaan. xabaddu aad u kulaanaysa awadeed ayaa waxay wararku sheegayaan in horjoogayaashan ka tirsan argixisada Al-Shabaab arrintooda xal waara laga gaari waayo. ma aha markii ugu horeysay oo dagaal noocaan ah u dhex maro horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab iyadoona dhowr jeer ay arrintani soo laalaabatay. waxayna arrintan dhabarjab weyn ay ku tahay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab dhexdooda iyadoona wararku ay sheegayaan in haatan dhimashadii dhaawaca dhexdooda uu marayo 45 maleeshiyada iyo laba horjoogo oo geeriyootay. haddaba dagaalkani maxaa sida weyn uga soconaya ilaa hadda wax war maysan ka soo saarin madaxda ugu sareysa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan dagaalka naftirkiisa ay ka cabsi qabaan iyagoo dagaalamaya in la duqeeyo. arrintanne waxa ay keentay cabsi weyn oo soo food saartay kooxda dhexdooda iyadoona ay ilaa hadda wada hadallo ay ugu jiraan sidii loo xalin lahaa dagaalkan degmada Maxaas ku dhex maraya kooxda Al-Shabaab. labada horjooge ee sida weyn ugu dagaalamaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ee kala wata labada maleeshiya ee Al-Shabaab ayaa warku waxay sheegayaan in gurmadidii ugu badnaa ee haatanba ay soo wada gaareen gudaha degmada. waxaana jira waawaan lagu doonayo in xiisadda lagu qaboojiyo ay wadaan odayaasha deegaanka. sidoo kale wararkanu waxay intaasi ay ku darayaan in gurmadkii ugu badnaa ay ka kala imaanayaan deegaano hoostaga deegaan lagu magacaabo Teedaan iyo deegaan lagu magacaabo Muqliga ay joogaan kooxaha Al-Shabaab iyadoona labada horjooge soo kala gurmanayaan. dagaalkan ayaa ah dagaalkii ugu cuslaa ee maalmahanba dhex mara kooxaha argagixisada Al-Shabaab dhexdooda iyadoona wararku ay tibaaxayaan in laga yaabo dagaalku inuu sii laba jibaarto. waxaana wararku sidaas intaasi ay ku darayaan in dagaalku uu ka bilowday kadib markay isku qabsadeen dhowr neef oo geel ah ay ka soo dhaceen shacabka degan tuulooyin hoostaga degmada Maxaas iyadoona labada horjooga ay arrintaas isku farsaareen. daawadayaal wixii ku soo kordha arrintan ka daawan doontaan channelkeena haddii fadlan kugu cusub yahay channelkan subscribe inoo saar waa mahadsantihiin.